agaasima isbitaalka Al-Hayaad Dr. Maxamed Xasan Dirir ayaa ka waramay waxyaabaha uu qabsoomay isbitaalka Al-Hayaad oo uu sheegay inuu isbitaalku u shaqeeyo si heer caalami ah. agaasimuhu waxa uu carabka ku dhuftay inuu isbitaalku leeyahay 80 sariirood iyo waadhar kala duwan oo rag iyo dumar leh. wuxuuna intaas raaciyay inuu isbitaalku leeyahay shaybaar casri ah oo xanuunada baadhistooda laga helin dalka. qaybaha isbitaalka ku weyn oo dhan soo aragteen sidoo qayb walba u shaqeeyo soo aragteen madaxda maanta qaybaha si weyn nin walba qayb walba maanta shaqeeyo sida u socoto anigu waxaan maanta ku soo koobiyaa hadalkayga moodaya isbitaalkan maanta waa isbitaal casri ah waa isbitaal dhakhaatiirta joogtaan aqoon beeraha leeyihiin oo khibradoodu fiican tahay waa isbitaal maanta qalabkiisu aad u fiican yahay waa isbitaal casri ah oo maanta shaqo tayo leh maanta bixiya isbitaalkani wuxuu ka kooban yahay 48 sariirood oo u kala baxan waddahay dumarka iyo ragga qalliinka iyo cudurrada guud iyo maaragtay dumarka emergency-ga gargaarka degdega ah adu toban waxa weeyaan 84 shaqaalaha ka shaqeeyana waa 87 waa administration-ka dhakhaatiirta nurses-ka anesthesia-da laboratory-ga pharmacist-ka accountant-ka iyo cashier-ka iyo support staff-ka labkani waa lab loo isticmaalo in lagu baaro baaritaanada ay soo diraan dhakhaatiirta ka shaqeeya isbitaalkan iyo nawaaxida Boorama. isbitaalka Al-Hayaad waxa uu dhakhaatiir u diray degmada Baki si halkaas ay uga soo daweeyaan dumarka uurka iyo carruurta oo si lacag la'aan ugu shaqeynayeen dhakhaatiirtii iyo dadkii la daweeyo oo ka hadlayna waxa hadaladoodii kamid ahaa ku faraxsan yihiin inay arwiyaan dumarka uurka leh isku kayna keenay goobtan maxaan ku kulano inay anna shaqeyno bulshada waxaan maanta halkan u nimidnay inaanu ka sameeyno sidoo kale ku sheegay daryeelka horumarinta aasaasiga isku soo wada duubo markii ugu horeysay dhakhtarka Al-Hayaad uu diro dhakhaatiirta wareegta degmada Baki Fatxiya Laki Somaliland Today magaalada Boorama.